Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan idin wada salaamayaa daawadayaashayda meel kastood adduunka ka joogtaan. Maanta waxaan joogaa Bike Place Market. Waxa weeyaan market ku yaala Seattle downtown agteeda suuqa hoose ayuu ku yaalaa. Maanta insha Allah maalin dheer oo wanaagsan baan haysan doonaa biidnillah. Ila daawada insha Allah. Marketkan waxaa la furay 1907. Marketkani waxa uu ka mid yahay marketyada ugu qadiimsan or the oldest and the largest public farmer markets in the United States ayuu ka mid yahay. Marka insha Allah bal waynu soo daawanaynaa. Halka aad arkaysaan waxa weeyaan Starbuckskii ugu horreeyay ee la furay waxaana la furay 1912 bal isagana kofigiisa wayna soo eegi. Safkan lagu jiro aad arkaysaan ee intaa leeg waxa loogu jiraa Starbucks kofigiisa dawad garanaysaa sida loo jecel yahay. Marka gudihiisana wad ila arki doontaan insha Allah. coffee baan ka soo iibsanay imikana gudahaan sii galaynaa waanu daawanaynaa insha Allah. Halkaa waxaad ka aragtaan macmacaankaas, it looks delicious. Bal waan eegi doonaa inaan soo iibsado. Imikana dukaankan aanu soo galnay. Dukaankan waxaa iska leh maxay ahayd qolay Turki baa iska leh, laakiin waxyaabaha hindidana way iibinayeen. Waxa u badan yihiin aan ku arkay ishan yare laga xidho dadka qaar aaminsan yihiin haddaad xidhatid il wax ku sawiran yihiin isha bilaadanka kuguma dhacayso. Waxaas ayaa ka buuxay, laakiin waxaanu ka soo iibsanay some organic tea. Sorry, It's fun. You can do it. Try that next. nimi gum wall ama gidaarka xanjada sida Soomaaliga aan ugu fasiray. Gidaarkan markii ugu horeysay waxaa ku dhajiyay dadkii macmiisha ahaa ee halkaa wax ka iibsan jiray iyo qaar fanaaniin oo performance sameyn jiray ayaa xanjada gidaarka ku nabay. Markaana lacagta coinska ah ama birta ah ayay kula nabi jireen, laakiin imika waa laga gooyay coinskii, xanjadii un baa loo daayay. Markaa qof kasta oo halkaa yimaado waxay noqotay meel caan ah oo dadka yimaada holidayga u yimaada magaalada Seattle inay halkaas soo arkaan. Wallkan waxaa la clean gareeyaa twice a year. Sanadkiiba 2 jeer ayaa la clean gareeyaa. Waxa ay ku qaadatay intii xanjada gidaarka laga fujinayay 2 saacadood iyo ilaa 10 minute ayay ku qaadatay. Waxa aanay ka soo fujiyeen 2300 pounds oo ah xanjadii qadiimka ahayd. Laakiin haddana halkii un baa laga bilaabay. Sanad kastaba ama dee maalin kastaba dad baa yimaada oo xanjadooda ku dhajiya. Gidaarkan haddaan la nadiifin waxa ku dhasha mold, wax madow oo gidaarada ku dhasha ku dhalanaya aan xanuuna laga qaadi karaa.
waxaanu nimid meelaan cunto ka iibsano, take away baan ka dhiganaynaa insha allah, and then coffee baan raadsanaynaa. meel xalaalo Turkiyaan tagnay. Imikana waxaanu nimid cafeteriadan, waa Starbucks. waxaa lagu sameeyaa waxaa lagu dubaa bunkii, waa lagu shiidayaa, waad iibsan kartaa, waad ku cuntayn kartaa ama coffeegaagad ku cabi kartaa. bakeries bay sameeyaan, it's amazing place. inkastoo imika waxay caawiyaan kuwan la dagaalamaya Falastiin, ay lacagta siiyaan marka askartooda ay siiyaan, marka insha allah dib uma iibsan doono. imikana waxaanu u nimi Space Needle, waa meel ku caana magaalada Seattle. waxaa design gareeyay nin la yidhaahdo Edward E, oo markaa ahaan jiray 1959kii wuxuu ka ahaa maamulaha hoteelka Seattle. qabanqaabiyaha bandhiga adduunka 1962na wuu ahaan jiray. marka waxa uu u safray wadanka Jarmalka, weliba magaalada Stuttgart. waxa uu arkay oo fikradan ku dhaliyay imaarad, wuxuu arkay baahbaahinta broadcast building ama tower ayuu arkay. kaas ayaa fikradda kusoo dhalisay. dabadeetana napkins ama tissuegan aan wax iska marino, warqadan cadeysanka la iska mariyo ama afka la iska mariyo, ayuu ku sawirtay. dana fikradiisu halkaas ayay ka bilaabmatay. uu ku design gareeyay Space Needle. imikana waanu ka soo baxnay. waxaanu tegaynaa, imika waxaanu kusii soconnaa meel la yidhaahdo Kerry Park. waxa weeyaan meel aad iyo aad viewgeeda u qurux badan yahay. waa dhinaca kale Seattle Space Needle ayuu ka xigta. halkaas in buildinga dheer ka arkaynaa. dhinacna waa taawaradii dhaadheera, dhinacna waa biyihii. idinkama sheekayn karo, waa inaad la daawataan, waa inaad subscribe-ka ku dhufataan, like dhac ku siisaan, share-kana ku tuurtaan baan idin idhi. insha allah videoya ka badanna waan idiin soo wadaa. This is so cool. Wow. Person ever. Angel. ragaanimoy ninkaagii nacasnimo maxaabaday nafsidiyohu ayaanko halkeedaas ku nooshii hadiyan kuna awilehi ha ii gabin nasiibo ilayn jacay kuwa nabad wanidub caloolihim oo lagama nuursado allahayo una nabadgeli naska iyo naruurada in hadaada nagu dhoor adduun laysu nool yahay naruuradaadii gildhiqo nafsi inay ku sii wanidub caloolihim oo lagama nuursado allahayo una nabadgeli naska iyo naruurada in hadaada nagu dhoor She came to Washington.
Alhamdulillah, I had a great day today. I hope in idinkuna inaad ila enjoy garayseen maanta maalintaydii. And inshallah, what your next vlog, then make sure inaad waxaan idin idhi subscribe-ka and tell a friend to tell a friend aad samaysaan oo dadka oo dhan asxaabta oo dhan la share garaysaan. Waa inoo maalin kale inshallah iyo habeen wanaagsan. Waqtigii baa imika sii dhacaya, gurigaygii baan ku soconnaa. Khayr badan baan idin rajeynayaa dhammaantiin. raganimo ninkaagii nacasnimo maxaabaday nafsigiyo ayaanko halkeebaad ku nooshiin hadiyan kuna awilehi ha igabin nasiibo ilayn jacaylku waa nabad والندوب علوليهم قولك منوسدو الله يوم النبات كلي ناسك يوم نرور ده هذا نقودور عدود ليس نولي هاي نرور ده دي الدغو نفسي ننكوسي برو